fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وعن ونكسن صاحب يال ميل وليبا وادمانتو عالمka ka joogtaan ku soo wada maanta iyo wararka ugu waaweyn sportiga ee channelkeena waxaan soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeya maanta ciyaaraha iyo kala iibsiga ciyaartooyga dabaaldegii kooxda Liverpool oo noqotay kooxda ugu fiican Yurub kadib markii xalay ku guuleystay Champions League wax walba ku saabsan Liverpool ayaa maanta ku sheegi doonaa ninkii Van Dijk ahana wuxuu si balansanayaa inuu Ballon d'Or ku guuleysanayo waxa uu leeyahay Messi ayaa u qalmay laakiin anigu ayaa qaaday koobkii lagu qaadi lahaa geedkaayo anigu baa ku guuleysanaya waxaan noqon karayaa ninkii difaac ugu horeeyay jaayisada ku guuleystay Maxamed Saalax Xasan maxaa ku dhacay waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay Ballon d'Or-ku Mourinho wuxuu leeyahay Messi wala Ronaldo sanadkan Ballon d'Or-ku miskala ma cidna iskala ma jirto maxay ahayd gabadhii xalay garoonka ku soo oroday record weyn oo uu wato ninkii Virgil van Dijk ahaa iyo UEFA oo aad u amaantay kana qayb noqday ciyaartooyga taariikhda ee finalada ugu fiican Pochettino wuxuu leeyahay dadaalkii aan soo wadnay 3 isbuuc rigoorada baa dilay iyo qodobo kale ayaanu ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan walla Liverpool ayaa dabaaldeg weyn wada ilaa hadda waa dabaaldegayaan taageerayaashoodana waa kan Soomaalida kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalku jooga maanta xalbiya jiftay wax jiftay ma jirine ilaa maanta waa soconayaan dad la raadinayaan madax ka galan bay raadinayaan wallahi idan arkayn dadka guriyooda isaga kala jiraya mucaaradku maanta wax soo baxaya ma jirto waa wada fool guri dhamaantood marka waxa weeyaan Liverpool maanta ma loo noolaan karo runtii waxaan wax kale runtii kooxdan waa koox cajiiba marka waa kooxda sanadka ugu fiican Yurub dhan weeyaano Champions League bay xalay ku guuleysteen marka dabaaldeg weyn bayna xalay ku sameeyeen qolka labisko aad iyo aad bay u dabaaldegeen hadda waxaan si toos u eegaynaa waxyaabihii laga bartay Liverpool iyo waxyaabihii ay sameeyeen iyo waxyaabaha laga yiri guushoodu Mourinho xataa waa soo hadlay wuxuu yiri ma taqaana wuxuu yiri kuwan sanad kasta la final u imaanayaan yiri macna kuwan sanad kasta saanu bay final u imaanayaan yani awoodoodu qiriya ha ragsi cilis gooni weeyaan Mourinho meel umada iska tuur maxad umada u haysataa ما وقتها رجعيس لما ربوا كوحدة ليفربول وأود أنا مروا إذا كل داري وحن ندير نمان كان وحمل لقى بكرو نمان كان واصادق تان نمان كان خوب أرور سي السعودان نمان كان واحد وجوبين والله بريهم با ما تحتاجش بالليفربول يا لابا وحي صو إنكارنا ذنبا وحي صو بلاي كورسار نيد إنكارنا ذنبا هدا كدب هدا ما تحتاجش مال أوراد ثانيسو ليفربول ما تحتاجش يلا نمان كان سالي خطر وهانيان كوحدة أدقت شبكة وسيبوا الجوجيان لبضوس تحدوا لو صدر يا مركا محل لقى بكر يابا بريهم بنيكي كوحدة سكور ريو ليفربول واحد من حدقسي دام ما jirto bariyahan meesha madaxdagsi baa yaala iyo koox awood loo tartamaysan halkan bay joogtaa arrimihii xalay dhacay waxyaabaha laga yiri waxyaabaha Liverpool si aad looga dhahay arrimaha Ballon d'Or-ku ayaa si toos u wada eegi doona kadibna wararka kala iibsiga ugu muhiimsan baan u eegi doonaa haddaba Champions League baa soo dhamaaday waxa la leeyahay Virgil van Dijk ninkaas nin cajaa'ib weeyaan wax ma laga qaban karo ninkaas nin mara waa la waayay war anigu ma buumada dhaqanayo ii sheega shaqa marabtiine wada kuwa Ronaldo yemay oo kuwa Messi yemay oo kuwa Hazard yemay oo kuwa maxal iraadaya Arsenal iyo kuwa Manchester City iyo kuwa kale iyo wax taageeramay war aniga buumada dhaqanay iska dhaafe waxa la leeyahay 64 ciyaarood xilli ciyaareedkan uu ciyaaray tartamada oo dhan Master Virgil van Dijk hal nin oo ku badal dhaaf waa la wayo mara marka maxaa anoo shaqadeeda waxaas ahayn baan soo galaya marka wareeyada qabuumadeedu maanta halayda qabuumada maxay tahay waxaan waa mara dhac weyne war maxay tahay dadka baroni ku shaqeystaa shaqadooda gafaya oo qabsanaynba war ma aniga buumada lay dhaqaya maanta oo ciyaaraya waa kay Virgil van Dijk waa 64 ciyaarood ee xilli ciyaareedkan uu ciyaaray tartamada oo dhan waa la waayay hal nin oo u gambiya ninkan UEFA waa amaant wixii tir ninka wax laga ma qaban karo ya aad baa loo amaanay ninkan 64 ciyaarood taas waxay ka dhigan tahay xilli ciyaareedkan ku tartamadii dhanaa ee Liverpool u ciyaaray hal uu gambiyo waa la waayay markaas ay kuwan Ronaldo-aynayaan kuwana Messi-aynayaan wadada qaar waxay dhahayaan Ronaldo laba ciyaari Maxamed Qadarow war ninkan wax ka qabto waa la waayay haddaad rabtaan inaad martaan soo keena sanadka dambe ninkan waa Maxamed Couture 64 ciyaarood waana laga loo gambiyo ninkan laga yaabay marka anigu baabumada dhaqanaya wax kale ma jiraanba Virgila arnin xoog weyn xaaja u dhamaatay dadka dhan ilmo uu ka wada dhiganaya ka warwaan dadku dhan buu ka wada dheer yahay waxaad u maleynaysaa nin weyn oo ilmo la ciyaaraya hadda ninkan wuxuu leeyahay ma taqaanahay ninkan warkiis waa weynaaday hadda ninkan Ballon d'Or inuu qaadaro ma ogtahay horta ninkan Ballon d'Or asaga ugu cadcad ha
adiga ciyaar baad haysaa adiga gafuurtaag iyo guryan iyo warleed meesha ku haysaa ninkan fandaja balandiyorku xal sii balansaday maxamed saalax waa ka saana loo boojinayo micnaa madqana maxamed saalax dadka qaar waxay isleeyihiin maxamed saalax ku guuleysanaya fandaaj baa ugu cadcad waliba fandaaj xalay waa sii baastay yani baas buu sii dhigtayo wuxuu u sii sheegayaa kuwa abaalmarinta bixiya inuu abaalmarinta sanadka isagu ka sugayo wuxuu yiri ma taqaana abaalmarintan Messi ayaa ku guuleysan lahaa laakiin aniga ayaa ka qaatay yani haddaan anigu Champions League ku guuleystay aniga ka qaaday uu leeyahay Ballon d'Or wala uu cadeeyay Messi inuu yahay laacibka ugu fiican adduunka una mar walba u qalmo in abaalmarintan la siiyo hadduu finalka ciyaari haddaanu ciyaarin haddana wuxuu qabaa isaga inuu markaan ka qaadanayo jaaisada Ballon d'Or-ku maxaa yeeluu leeyahay anigu baa guuleystay micnuhu guushi maxay tahay anigu baa Champions League ku qaaday waxaana abaalmarinta ku guuleysan jiray ciyaaryahanka Champions League ku guuleysta marka ninkan warkiisa waa cad yahay waa la sii balansanaya abaalmarintii Ballon d'Or-ku sanadka in isagu la siinayo ayuuba sii cadaynayo kuwa Faransiiska bixina waa u sii sheegay wuxuu leeyahay Messi mar walba uu qalmaa buu leeyahay jaa'isadan Ballon d'Or-ku walina waa nin tartami doona xaqiiqan kan buu leeyahay wuxuu yiri anigu waxaan filayaa in Messi yahay ciyaartooyga adduunka ugu fiican waxa waajibna ah inuu isagu ku guuleysto Ballon d'Or-ku sidaas daraadeed anigu kama fikirayo cid ku guuleysanaysa Ballon d'Or-ku laakiin haddii aan ku guuleysto waan qaadanayaa anigu inkastoo ay waajib tahay in Messi guuleysto isagu waa adduunkan ugu fiican buuri hadduu finalku joogay haddii kalaba laakiin marba haddii aan anigu ku guuleystay Champions League miyaan wahayn buu leeyahay in Ballon d'Or-ku gacanta laga saaro marka Virgil van Dijk wuxuu sii muujinayaa inuu sanadkan Ballon d'Or-ku isagu u qalbo laakiin marna meesha kama saarin inuu yahay Messi nin wax kala ah wuxuu cadeeyay Messi mar walba Ballon d'Or-ku isagu u qalmo waa nin ixtiraam badan kan Van Dijk wuxuu leeyahay mar walba odaga u qalma hatta haday noqoto sanadkan ama final ha ciyaaro ama yaanu ciyaarin isaga u qalmo leeyahay laakiin haddii la isiyo lido Van Dijk oo adaa ku guuleystay Ballon d'Or-ku waa qaadanaya uu yiri haddii ba la isiinayo waan iska qaadanaya Van Dijk oo noqday xidiga sanadka ugu fiican ee Premier League sanadkan ayaa sidoo kale fursad u haystay inuu noqdo difaaci ugu horeeyay ku guuleystay Ballon d'Or tan iyo 2006 markaas oo la siiyay Fabio Cannavaro xidiga sanadka ugu fiican ee dunida marba haddii xali Champions League la qaaday waxa sii kala cadaanaya ciyaaryahanka ku guuleysan karaya Ballon d'Or marka Maxamed Saalax bay dadka qaar qabaan Maxamed Saalax waa kaas Van Dijk luuq si xirinayo micnaa Maxamed Saalax waa kaayay yara aamusan yahay ninkan waa ka wasi cadeysana wuxuu leeyahay haddii lagu cimaamadayo waan qaadanaya uu leeyahay marka meeshan indha kari waxa la isku dhaafi af Soomaali la isku dhaafi meeshan af Soomaali macnuhu yaani nin war badan oo galgal badan waa kay hadda si ninkan si booska si raadsanaya Champions League aan raadey Ballon d'Or-ku waa ka laakiin Mourinho ayaa ka waramaya haddii sanadkan Messi wala Ronaldo midkood la siin doono Ballon d'Or-ku maya ma jirto leeyahay sanadkan labadu mid ku guuleysanay Ballon d'Or-ku Mourinho ayaa sii saaday labaduba nin inay ku guuleysan karin Ballon d'Or-ku maxaa yeelay abaalmarintan waxa ku guuleysanaya uu yiri ciyaaryahanka koob qaada haddii Juventus ay koobka Champions League ku qaad lahayd Ronaldo la sii lahaa hadduu Barca ay qaadi lahaydna Messi baa la sii lahaa labadoodu midna ma lahan buu leeyahay xilciyaareedka soo aadan Ballon d'Or-kan qof kale baa la siinaya laakiin Mourinho wuxuu ka shalaanayaa inuu arki waayo weligii Messi iyo Ronaldo ku tartamaya finalka Champions League yaani labadoodu final isu soo haray wuxuu yiri kubadda cagtu khalad bay gashay haddaanu arki weynay Messi iyo Ronaldo finalka Champions League ciyaaraya oo midkood uu guuleysanayo markaas waxa cadaan lahayd muranka jira baa meesha ka bixi laayo Messi fiican maya Ronaldo fiican ka bixi lahayd meeshu yiri yaani waan arki lahayn bur labadoodu ciyaaraya labadan oo final isla imaanay lama arkin mid un baa imaan jiray weligoodba waa wax laga caroodu leeyahay kubadda cagta wadad kubadda cagtu jecel ay ka caroonayaan in weligood labadan oo final isaga hor imaanin haddaba Master Virgil van Dijk ayaa lagu daray liiska ciyaartooyga finalka koobka Champions League ugu fiicnaa yani xidiga garoonka ugu fiicnaa xalay Van Dijk bay u doorteen UEFA halka Sky Sport ay u doorteen ciyaartooyga lagu magacaabo Alisson Barker oo gool haya qatar badana haddaba liiskan ayuu ku biirayo raga xidiga sanadka ugu fiican ورجع فينال كشامليجو وقف فينا باللجود دارين كانوا تاريخ ذا شامليجو وحالي نيك وقف فينا شامليجو فينال كابو نقضيه تليس كانوا جارد بيل بسنة كوركو جوليستي كيكوري رونالدو كيكسيو راموس كيكوري انيستا كيكوري دي ماريا كيكوري روبين كيكوري دراجبا كيكوري ميسي لو كنت بيكوجي لو كنت تمام ميليتو شافي وكو جوليست لو ساك لو زدي فاندرسار لو كنت ضودي انزاجي لو كل يحيى تو لو كشنت ستيفن شيرات لو غفرت ديكو با لو دورتي مالديني لو كسدحدي لو دورتي لو كل ودي waxa loo doortay sidaan لو كودن اوليفر خان با loo doortay واحد دغه فينالka شامليجو ugu fiicnaa taariikhda Van Dijk xalay waa ku biiray oo wuxuu noqday xidiga ugu fiicnaa xalay garoonka finalka Champions League ninka la yiraahdo Pep Guardiola waa u hambaliyay telefoon buu ka wacay ninka lagu magacaabo Jordi Klopp ayaa sheegay inuu telefoon ka helay Pep Guardiola oo uu hambaliyay wuxuu hal daqiiqo kadib markii ciyaartu dhamaatay telefoon buu iga soo wacay Pep Guardiola waa ii hambaliyay buu yiri oo igu hambaliyay inuu Champions League ku guuleystay laakiin wuxuu cadeeyay Klopp in labadoodu haddana markay telefoonka ku wada hadlayeen ay haddana isii balansadeen waxaan isku balansanay buu xilli ciyaareedka dambe haddana ay tartami doonaan wuxuu yiri wuxuu midka kale ka balan qaaday xagaaga dambe inuu ka guuleysan doono dagaal waanu sii balanay buu yiri
waxa uu yiri kuwa anigu markuu ii hambali wuxuu yiri Guardiola ii hambaliyay waan isku hanjabnay yiri wariyaahe xagaga damba noo balan aniga ka qaadayo war waxaad keeni kartaa keen ana meel ku saarayo waa si ballameen labadii nin arkuwaana war Premier League meenu dad kala joogin labadan ba isku bootaynaya mar walba tartan adag baan isku balansanay wiriyo markuu ii hambaliyay baan isku hanjabnay wiri inaan sanad dambe Premier League ka qaaday iga qaadisiyo sanad dambe noo balan oo meel fiican baan gaarayo waan isku bootay labadii ninba sanadka dambe ninkii labadii reerka u soo hara labadeenu ninkii xoog badnaaday reerka u harayaan ku heshiinay buu leeyahay Klopp iyo Waka Guardiola ninka la yiraahdana Harry Kane wuxuu ahaa wulida qaladkii ugu weynaa ee xalin la ciyaarsiyo maxay ilay ninka la yiraahdo Pochettino wuxuu sameeyay ixtiraam badan buu siiyay ninka la yiraahdo Kane umaana qalmin baa leeyahay dhaawac maadaama ka soo noqday waxay buureen xalay ixtiraamka dhan la siinin oo yaani 9 ba loo dhameyn waxay baa leeyahay in doqay kala fiiriyo sida Mauro oo wax kooxda record fiican u sameeyay soo saaray ayaa keed la galiyay xalay oo ninkan oo dhaawac ka soo noqday waa la ciyaarsiiyay marka xalay islama galayso guulan raba iyo qof aan ixtiraamayn islama galayso waa kay Pochettino la garaacay xalay Klopp wuxuu leeyahay 6 final ayaan lumiyay inta aan dhibtooday ama amrugoodana waxa murugooday taageerayaashu leeyahay wuxuuna ka hadlay hadda uu yiri war saaxiibayaal bariyo la soo dhaaf waxaad ka hadlayseen guul darooyinkeyga iyo 6dii final aan lumiyay waynan maanta ka hadalnaa wiri 6da caruur yaani 6da koob ee Champions League aanu qaadnay waynan ka hadalnaa wiri asxaabi aan ka hadalno 6da Champions League aan anagu haysano uu yiri xalay يعني أنا قلت شمليك بانو قادنا إسكتنا في ورقة تكون مشغولة إنسان اللي شمليك ليه كشكاية أنا قلت حنا يكون اللي شمليك قاعد يقول ليه ما أنا نقول بلن قاعد إن وحول بيقول سمين دوران العيادات السوق أدنى السنة ده السوق أدنى مركز السوق أدنى با إني يقول يصير دوران كوب بدل ليفربول ويقول مركز وحنا نقول بلن بوري سان قبل بن كوب قاعد دوبا سعونيسا مرة نقولش يا ماشى الرابع كده يا حلي ماشى الرابع كده أي وكمان نقول ليه وحنا نقول بلنا إن كوب الروسي بلونه أنا مدحن كدريم ماشان كوب أروسيا كسوس صعدة ماشان وحدة كده مدح دكسيا يلا ليفربول على أوردا مجرتو ليفربول لوسو مدح دكس دونا يا ماشان وطلع هذا بقى جوسي موريو أيها قري ليفربول شني حوق بدن تهي أنا ميقان كل الداري وميقان جيران كل هاي والليفربول شان وأود دافت ووحن وحلا قبل كرين نيمان كان عمد ضد الله ما يسكر قرما يدين هاي والويلشان والنواليان والويلشان وحلا ما قبل كريو هذا مريم حليه متقانا أو مع مريم محمد غادر بيا مريم حليه هاي ومحدد وليفربول بورسنت كسو ادني فينال غارتو صدح فينال خير ليفربول اني غارتو عديدي سمالها بقول له نينكا جوس مورينها waa iska tuuri cimaamad uu iska tuuri Jose Mourinho maxad garabka ugu haystaa isaga in garba xalay falanqeynay finalka ciyaaraha kan ee Champions League wuxuu leeyahay hadii Real Madrid 3 jeer xir ay gaartay oo maxadid uu leeyahay Liverpool in 3 sano xir ay gaarayso finalka wuxuu leeyahay Liverpool waa koox awood leh oo spirit badan oo ciyaartoy fiican haysta wax diidaya ma uu leeyahay Liverpool sanad dambe in final timaado marka Mourinho wuxuu taagan yahay kuwaan xoogooda sanad dambe final bay gaarayaan hadii Madrid ay 3 final tagtay maxaa diiday Liverpool inay tagto maxay la kuwan awood bay leeyihiin buu leeyahay Mourinho xataa iska tuuray ciidamada Klopp ayaa noqday xalay macallinkii shanaad ee Jarmalka taariikhda ku guuleystay tartanka Champions League kadib Dimitri Kerner, Job Heynckes, Otmar Hitzfeld iyo Undo Lattek laakiin laba nin oo Jarmal ayaa taariikhda koobkan kooxo kala duwan ku qaaday oo aan ahayn Jarmal waa Heynckes oo Madrid la qaaday iyo kan oo Liverpool la qaaday Pochettino labadii jeer wiligiis final la gaaray Tottenham waa laga wada qaaday wiligiisna koob ma ku guuleysan isagoo xirfadiisa tababarnimo sida aan shalay goor hore ku sheegana Champions League kooxda ku cusub finalkiisa waa laga qaaday jirto tusaale ahaan shalay Tottenham finalka markii ugu horeysay gaartay bay ahayd 6dii koox u dambeeyay ee finalka yimaada markoodii ugu horeysay waa laga qaaday tusaale ahaan Chelsea waa laga qaaday 2008 markii ugu horeysay timid Arsenal waa laga qaaday 2006 Monaco waa laga qaaday 2004 Bayer Leverkusen waa laga qaaday 2002 Valencia waa laga qaaday 2000 kuwana xalay 2009 waa laga qaaday 6dii koox u dambeeyay finalka Champions League markii ugu horeysay yimaaday waa laga qaaday waxana uu xalay finalkii ugu horeeyay Champions League taariikhda ee aan la bixin wax jaala ah hal kaar lama bixin hal kaar rose wala jaala midna lama bixin wiilka yare Arnold ayaa xalay taariikh sameeyo isagoo 20 jir ah waliba dhalan 237 maalmood waa 20 jir 237 maalmood dhalan ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay abid oo da'diisu wali ay tahay ay ka yar tahay 12 sano jir ee 2 sano xiriir finalka Champions League ciyaara kuna soo bilowday safka koowaad ee kooxda cunugan wax kala waa cunugan waa tagay Liverpool labada garbood bay ka duuleysay iyo meel kaleba Arnold hadlay wuxuu yiri waxaan ahay wiil kale oo ka soo baxay Liverpool eeridiisa ay u rumooday Salahna wuxuu leeyahay kubadda cagta ayaa badbaadisay uu leeyahay nolosheeda in adigo Egyptian ama Masaari ah aad kubadda cagta heerka ka gaarto leeyahay waxaan wax laga qaban karin buu leeyahay qof Masaari oo heerka kubadda cagta ka gaarayo waa wax aad u nasiib badan buu leeyahay yaani hortay ma dhicin buu leeyahay in Egyptian oo sida gaara waa runtii
Alberto Moreno wuxuu xalay soo xirtay fanaanada saaxiibkiisii Jose Antonio Reyes oo xalay lagu baroordiiqayay Champions League intaynu bilaaban ciyaarta loo aamusay waa ninkii shilka gaari ku geeriyooday wuxuu soo gashtay fanaanada isaga Jose Antonio Reyes ninka geeriyooday oo 2004 ku wada guuleysan Europa League waxaana uu ku soo qoray waan ku jeclahay walaal Henderson wuxuu leeyahay ku guuleysiga Champions League macquul ma ahaan leen buuri la'aanta Klopp wuxuu ahaa wiiri tababaro weyn la'aantiis man ku guuleysan buu leeyahay Champions League kanu Klopp la'aan kuma guuleysan lahayn buu yiri ninka la yiraahdo Henderson oo Klopp ayaa ka dambeeyay uu leeyahay guushan maanta Pochettino wuxuu leeyahay hawl aan 3 isbuuc soo wadnay ayaa daaqadii ugu horeysay baabiisay buu leeyahay waana rigooradii laga dhigay kooxda Liverpool oo loo dhigay oo Tottenham laga dhigay taasoo ay ka soo horjeestay dadka qaar taageerayaasha kubadda cagta waxay yiraahdeen kubadda cagtu waa dhimatay bay yiraahdeen halka falanqeeyo weyn oo ciyaaraha oo la yiraahdo Juan Odger oo reer Spain uu leeyahay qalad bay ahayd rigooraha ka in loo dhigay Liverpool laakiin Mohamed Salah ayaa wuxuu qabaa inuu hadda wixii ka dambeeyay jecel yahay VAR wuxuu yiri hadda waan jeclahay wuri VAR waan ka helay yani rigooradii laygu dhigay caahawa aad baan ugu faraxsan wuri VAR baan taageeraha uu leeyahay in rigoorada loogu dhigay laakiin taageerayaasha kubadda cagtu aad bay ugu soo horjeesteen xilliga in rigoor lagu abaalmariyo kooxda kubadda cagta Liverpool Dejan Lovren waxa la arkay isagoo xalay jaranaya shabaqa qayb kamid ah maadaama uu ku xusanayo Champions League lixaad oo Liverpool la qaaday Dali Alina waxa la arkay isagoo xalay carooday oo iska tuur marka shay agtiisa yaala tuuraya kadib markii la bedelay wuxuu ka carooday in la bedelo caagadii meesha yaalay buu tuuray oo caradiisu waa qarsan way in la bedelo waxa lagu bedelay daqiiqadii 87 Fernando Llorente oo maxay ahayd xalay gabadhii garoonka soo dhex galeysay ku ordaysay taas dad badan waa ka yaabisay gabadha waa gabar Ruushiyana waxa la leeyahay waxay u cimaamadeysay nin saaxiibkeed ah oo YouTuber ah iyo website la ah oo filimada anshaxun soo geliya ninka saaxiibkeed u cimaamadeysay lagu yiriyo waxay xayeysiinaysay channelka saaxiibkeed uu ku leeyahay YouTube-ka ay xayeysiinaysay si cimaamad badan uu helo dad badan ay mataqaana ku biiraan oo channelkaas ku biiraan oo daawadaan si dhaqaale badan ay kaga helaan marka gabadhu garoonka soo gashay wax kale mu soo galin baa lagu yiri waxay u cimaamadeysay saaxiibkeed yani ay taageeraysay saaxiibkeed oo bart YouTube ku leh oo aad loo daawado waliba la soo geliyo filimada anshaxun iyo website-ka ay mataqaana cimaamadeysay asagu xataa final Cup-ka adduunka 2004 sidaas ayuu garoonka u soo galayo YouTube-kiisu ku xayeysiisanayay marka gabadhii xalay waxa la ogaaday inaysan ujeed kale lahayn ujeedkeedu uu ahaa in saaxiibkeed mataqaana u kala kiciso channelkiisa goolhayaha Liverpool waa kaayay Alisson Barker xalay markii uu Champions League ku guuleysan wuxuu la qaybsanayay farxadiisa xaaskiisa iyo canugiisa caloosha lagu hayo ayuu la dabaaldegay canugiisa kale waa kaayay video call ka wacayo la qaybsanayay farxadii guusha arkana Alisson alla muxuu goolhayo yahay muxuu wax badbaadiyay kan Liverpool waa ku heshay Liverpool kan waa ku heshay kan Mohamed Couture waa gacmo weynahan intee laga maraya kan waa mid kamid ah goolhayaasha ugu fiican waqtigan haddaanu 1 2 3 ahayn uu ugu horeeyaba waa kay jecelkiisu waxa la qaybsanayay yaani farxadiisu la qaybsanayay jecelkiisu Amorati waa ninkan fiiri shaqadiisa Amoratiga ma ka baxayo gacalisooyinka ninkan oo kale jecel yihiin oo xataa garoon ka soo dhaxwacaya wariya dad ka tasgishan gari gabadhu been ha u sheegina gabadhina san ugu cimaamadan baa la rabaa waa hooyadii guriga si toos buu telefoonka ugu wacay ma Newcastle waxa lagu wadaa warwarkii kala qaybaha kala baan gudugali doonaa Newcastle waxa lagu wadaa inuu la wareego Sheikh Khalid bin Ziyad Al Nahyan oo ah Sheikh ilma adeer yihiin Sheikh iskale Man City waxa lagu wadaa ninka inuu la wareego kooxda Newcastle waxaanu doonayaa baa leeyahay inuu kooxda ka raacdeeyo ninka la yiraahdo Benitez una tababar weyn kooxdu keeno waxaanu doonayaa baa midkood inuu Newcastle tababar u dhigo Jose Mourinho Arsene Wenger nin lacag la kooxdan la wareegayo bishan ayana lagu wadaa in heshiiskan u dhamaado oo Sheikhan uu la wareego kooxda kubadda cagta Newcastle labadaas nin buu damacsan yahay baa leeyahay inuu ka dhigo tababarahooda xiga Atletico Madrid waxay qorsheynaysaa baa leeyahay in ay mataqaana ka qaadato talaab ay ka qaado kooxda kubadda cagta Barcelona oo ay wararku sheegayaan in goor hore ay si gaartay ciyaartoyga Griezmann Atletico aad bay u xariisatay baa leeyahay ka xariisatay Griezmann iyo Barca waxay sameeyeen waxay wararku leeyihiin Simeone Atletico waxay doonayaan in Barcelona ay la dagaalan oo ay kula dagaalan inuu heshiiskan u dhicin waliba oo ay mataqaana ku dacweeyaan maxkamadaha ugu sareeya kubadda cagta maxay yeelay waxa ay Barcelona la sii heshiiyeen ciyaaryahan kooxdu ka tirsan koox kale ka tirsan waxay warar ku leeyihiin Barcelona ninkan waxay wada xaajood kula jirtay baa leeyahay bishii November ee la soo dhaafay waxana heshiis la gaareen baa leeyahay uu kooxdu ugu soo biray bishii Marso marka heshiis bay sii gaareen ninkan isagoo kooxda ka tirsan yani kooxdu uu qayaanay weeyaan Atletico aad bay u cariisantaa baa leeyahay heshiiska Barcelona iyo Griezmann goor horeba sii gaareen ee Marso Novemberna wada xaajood ku bilowday marka waa kaayo ciyaarihi baan inta ku gabagaynayna warka habeenimo baad ku maqli doontaan wararka kala iibsiga ugu badnaan doona Liverpool baan iska sii cimaamadeeynayo waa ka Liverpool wallahi baanta weydin wariya meedan xoolo noo qalaynin ya Liverpoolow wariya waad guuleysatay abaarta waad ka baxdeen xoolo noo qalaya qay noogu waa xafladihiin u gaarka Liverpool waa kaayo koob qaadid bay bilowday oo fiiri Man City bay la ciyaareen August Community Shield-ga sidoo kale August waxay la ciyaarayeen
Chelsea UEFA Super Cup laba koob kale ayaaba u soo socday Liverpool oo xilli ciyaareedka dambe intaanu bilaabanba iyagoo saddex koob qaaday bay ciyaari karayaan marka Liverpool waa kala kacdayo meeshan cimad bay leedahay marka kanu Agosto kuma shildiga ma sidii la ciyaarayaan sidoo kale isla Agosto UEFA Super Cup Chelsea la ciyaarayaan Liverpool aan aragnay xooga weyn leh waan arki doonaa waxa meesha ka yimaada ciyaarihi waa naga intaa